dabcan qof walbo naga mid ah wuu isku day inuu indhaha xoqo ugu sii jir dadka qaar kale markay indhaha xoqayo inay ka helayaan ay u bogayaan ay ku raaxaysanayaan indhahaas oo qofka xoqayo ma dhibaato ay u keeni kartaa mise waa iska caadi arrimahaas ayaa muuqaalkeena ku saabsan yahay inta hore u gudagelin muuqaalka haddii taa markuu warayso muuqaaleen daawad subscribe noo saar sidoo kale like noo saar haddii hore nooga mid marka hore qofka inuu indhaha xoqo ayaa waxaa ku qasbi kara inuu qofka indha cuncun dareemo sidoo kale isho kale markay wax ka galaan oo kale in uu indhaha gacanta la aado xoqo sidoo kale waxyaabaha qofka ku qasbi karo in indhaha xoqo waxaa ka mid ah markii uu hurdo rabo kala mise habeenkii hurdo ee soo kale in uu indhaha la aadayo gacanta uu indhaha xoqayo waxyaabaha qofka ee ku dhali karo in indhaha xoqo uu indhaha gacanta la aado qaar waxaa arkaysaa indhaha xoqidda ka raadinayo in ay nafis ay ka helaan marka qofka haddii uu indhaha xoqo 5 arrimood ayuu indhihiisa ay sababi kartaa oo ka dhalan karta midda koowaad oo noqonaysa haddii qofka mar walba indhaha xoqo madoobaad inuu ku yeesho hareeraha indhaha taas oo muuqaal hore aan kaga hadalnay iyo waxyaabaha sababi kara qofkii faahfaahin dheer u baahan marka qofka indhaha xoqaayo arrintan ayaa ka dhalan karto haddii uu muddo badan indhaha xoqo oo weliba caado uu ka dhigto arrinta labaad waxay tahay qofka markay indhaha cunayaan oo kale in uu gacanta la aadayo si uu cuncunkaas ay kaga badbaado laakiin arrinta way ka duwan tahay oo haddii uu qofka gacanta la aado cuncunka 2 jibaar ayuu sii noqonayaa ilaa 3 jibaar uu ku sii badanaya taas oo keeni karto marka qaar indhaha inay wax ka galaan qofka halka markuu gacanta la aadana shaygaas isha ku jiray in uu isha ku wareegsado ay ku wareejiyaan oo xataa laga yaabo in uu dhaawacyo indhaha uu gaarsiiyo marka qofka haddii uu gacanta la aado ama xoqidda uu la aado xilliga cuncun uu dareemayo cuncunku waa ay kaga sii daraysaa arrinta saddexaad oo ka dhalan karta waxay tahay infection ma marka qaar gacmahaaga markaa gacanta la aado kale inuu infection isha qaado sidoo kale haddii hal il infection qabtay isha kale inaad u gudbisidna aad ay u fududahay haddii aad gacanta xoqidda aad la aadayso arrinta afraad waxay tahay dadka contact lens mise baliisha indhaha isticmaalo ayagoo indhahooda kugu jirta haddii ay cuncun dareemaan oo indhaha xoqaan waxay u badan tahay in contact lensgaas ay banaanka ay u soo baxdo arrinta shanaad oo ugu daran oo samayn karta qofka indhaha xoqo waxay tahay wax la yiraahdo keratoconus cudur la yiraahdo oo ah in xuubka sare isha ama cornea loo yaqaano in ay qafiif noqoto sida qofka uu xoqayo taas oo keeni karta qofka araggiisa in ay hoos u dhacdo oo araggaas oo halkaas ku lumo in dib loo soo celiyo in ay aad u adkaanayso shantaas arrimood waxay ah 5 arrimood oo si toos ah u saameyn karta qofka caado ka dhigto inuu indhaha mar walba xoqo marka talooyinka aan ku siin lahaa waxay tahay qofka indhaha cuncuno talooyinka muuqaal hore aan soo dhignay indha cuncunka u keena xasaasiyadda talooyinka ku xusanna qofka ha ku dadaal haddii ay cuncunkaas ay u keenayaan xasaasiyad arrinta labaad aan usoo jeedin lahayn waxay tahay haddii 2 beri iyo 3 beri ka badan ayaa ku aragtay indha cuncun u dhaqsataa dhakhtarka indhaha markaa indhaha la kulantid si arrintaas indha cuncun kuu keenayo lagaga caawiyo su-aasha maanta waxay tahay indha cuncun zaa'id miyaa isku aragtaa halkaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabaynaa haddii aa muuqaalka hesha like noo saar waxaa idin rajaa caafimaad iyo indho fayow